بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه waxaan rabaa inaan ka hadlo arintii maalmahan ay socotay mooshinkii oo jawaari laga keenay ilaa hadda arintii waa socotaa madaxweynaha wax xal uu ka gaaray haba yaraateen male madaxweynaha saa ka warqabtaan asaga waxa lagu soo doortay sharciga hadda yaalo meeshan dastuurka iyo xiroosaadka wuxuu qabaa lagu soo doortay dala lagu soo doortay cod qarsoodiya lagu soo doortay fagaara lagu soo doortay beesha caalamka ka soo qayb gashay bulshada rayidka ka soo qayb gashay culimada diinta ka soo qayb galay si sax ah u dhacday arintii aan ka codsanay wuu fulin waayay hadda berit waxay u socdaan xildhibaanadii mooshinka ka keenay inay golaha shacabka ay tagaan madaxweynaha labadii dhinacba waa la kulmay wuxuu ka qaban waayay waa ku fashilmay arintan madaxweynaha waxa uu soo jeedinayaa inuu iscasilo tan kalena waxa jirto ilaaladii gudoomiyaha baarlamaanka ilaaladiisii ayaa maxaa la dhahaayay laga kaxaystay gudoomiyaha golaha shacabka bilaa Hargeysa meeshay ku shaqeynayeen sharcigan wuxuu qabaa meesha goob kasta oo golaha shacabka ahaato ama bilaa Hargeysa ahaato xiroosaadka wuxuu qorayaa qodobkiisa 38 farqadiisa saddexaad waxay qoraysaa ciidanka waxaa golaha soo gelin kara amar bixin kara wuxuu ku imaan karaa amarka ciidanka golaha gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka waa joogaa markan ciidamadii ilaalada madaxweynaha waa joogaan ilaaladii ra'iisul wasaaraha waa joogaan ilaaladii golihii shacabka meesha waa laga wato waxaan u arkaynaa inay tahay arin qalad ah waxa waa ilaaladaasna waa inaad soo celiyaa meeshooda lagu soo celiyaa oo loo keenaa odaygaas oo rugcadaaga ah oo gudoomiyaha baarlamaanka ah kana soo shaqeeyay sharcigan dejintiisa iyo dastuurkan howl badan ka qabtay waxaan rabnaa ninkaas haddii xilka laga qaadayo si sharci in loo qaado oo fagaaraha la tago xalano la tago oo ummadana ay wada arkayso oo doorashadii ay dhacdo arintii waa ka aamusteen waxbaad ka qaban weysay labada dhinacna waa la kulantay madaxweyne arintan waa ku fashilantay waxaan rabnaa wadan sharciga ka imaatay Mareykanka oo aad ogtahay sharcigii saray Mareykanka wax walba sharciga ka saray waa ogtahay adigana sharciga ilaalintiisa iyo waxay tahay waa ku xadgudubtay sharcigii Soomaaliya oo ay dhigteen dastuurkii ay xiroosaadku waxa ku xadgudubtay dhinacaad u heelisay madaxweyne iscazil hadda kor ra'iisul wasaare adoo iscasishay haddana adoo madaxweyne waxaan ka codsanaynaa waxaan culays kugu saaraynaa anigoo kamid ah baarlamaanka Afrika xubin kamid ah haddana xubin kamid ah maxaa la leeyahay xildhibaanada dawladda federaalka waxaan ka codsanayaa inaad iscasishid saacadaha soo socda